Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal kale. Haddaba ma ku dhib qabtaa dhibaato ka haysata dhanka storage-ka? Dhibaatada xal ayaa loo helay. Fadlan inta aanan u guda gelin muuqaalkeena ka hor like saaro muuqaalka subscribe na saar gambaleelkana furo si ay kusoo gaaraan muuqaalada muhiimka ah ee halkan kusoo gudbino. Haddaba muuqaalkeena maanta ayaa waxaan uga hadli doonaa habka ugu fudud ee taleefanka storage-kiisa aad u badsan karto ama aad clear ugu dhigan karto. Sideed ugu dhigan kartaa? Ila joog ilaa dhamaadka muuqaalka. Haddii aan usoo laabano muuqaalkeena maanta daawadayaal, haddaba waad badsan kartaa storage-ka mobile-kaaga ama space ayaad u yeelan kartaa. Haddii aad ku dhib qabto midda, xal ayaa loo helay daawade. Marka hore waxaad tagaysaa Play Store-ka mobile-kaaga, kabacdi markii aad ku dhufato Play Store-ka waxaad raadinaysaa application la yiraahdo Terabyte Cloud Storage Space ayaad qori doontaa. Linkiga description-ka ayaa dhiga daawade, halka ka qaado. Markii aad ku dhufato kabacdi sidan ayuu ku soo saari doonaa. Sida aad halkan ugu wada jeedaan hadda hal in waxa application-kan soo degsatay wax ka badan 1 milyan. Waxaan rajeynayaa inaad ka mid noqon doonto adiguna. Markii aad ku dhufato kabacdi gudaha u sii gasho application-kan, application-kan waxaa la update gareeyay 2 September 2022. Terabyte v3.0.0.3.0.2 interactive and visual options waa la update gareeyay calaa kulli xaal. Haddaba sideed halkan ugu wada jeedaan application-kan inta badan dadku waxay siiyaan 4 xidigood oo ay micnaheedu tahay in uu yahay application-kan mid tayo leh. Kabacdi waxaad ku dhufanaysaa halkan ay ku qoran tahay open. Markii aad soo degsato kabacdi wuxuu ku dhihi doonaa gali gmail-ka aad leedahay ama gmail-kaaga markii aad geliso kabacdi sidan ayuu ku soo saari doonaa. Hadda waxaan waa xayeysiis garal noqdo, ay ahaayeen. Markii aad geliso kabacdi aad gmail-kaaga geliso sidan ayuu ku soo saari doonaa. Sidaad halkan ugu wada jeedaan, halkan waxaa ku qoran 10 GB up to 124 GB ayaad u bedelan kartaa. For free space, experiment space in friend to upgrade now. Saaxiibadan waad u diri kartaa si ayagun u hagaagsadaan. Haddaba sidee aad wax ugu kaydsan kartaa bilaa space la'aan ama isaga oo aanan ka isticmaalin xitaa 1 GB? Marka hore waxaad ku dhufanaysaa halkan blast ah. Markii aad halkan blast ku dhufato kabacdi sidan ayuu ku soo saari doonaa. Photos, sawirro waad ku kaydsan kartaa, videos waad ku kaydsan kartaa, documents waad ku kaydsan kartaa, remote upload waad ku kaydsan kartaa, sawir inaad markaa iska qaado xitaa waad ku kaydsan kartaa. Haddaba sidee aad ku ogaan kartaa wixii aad ku kaydsatay in ay ku kaydsameen iyo in kale? Fadlan daawade, application-kan ma shaqeynayo bilaa internet. Haddii aadan haysan internet waan ka xumahay, balse haddii aad tahay qof internet haysto wuu ku anfacaya adiga. Halkan korta ay calaamada kore aad ku dhufanaysaa. Markaa halka ku dhufato kabacdi wuxuu ku soo saari doonaa transfer list oo ay micnaheedu tahay halka lagu transfer gareeyo videoyada. Download halkan ay ku qoran tahay aad ku dhufan kartaa, ama halkan remote download ay ku qoran tahay aad ku dhufan kartaa. Hadda sida aad halkan ugu wada jeedaan, aniga intaan oo sawir ayaan ku kaydsaday, intaan ayaa hadda ii kaydsatay, intaana way ii socdaan. Haddaba video xitaa waad ku kaydsan kartaa adigoo kaliya halkan taabanaya. Kabacdi waxaad kasii dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay videos ayaad kasii dooranaysaa. Sida halkan ugu wada jeedaan dhammaan wuxuu isu saaray waxa video aniga ugu jiro. Kabacdi waxaad kasii dooranaysaa video aad rabto inaad ku kaydso upload ayaad dhahaysaa si fudud. Kabacdi wuxuu ku soo qorayaa uploading on cellular data. Kabacdi halkan ayuu ka socdaa. Hadda qaybta sare ee laga ogaanay ayuu ka socdaa. Sida aad halkan ugu wada jeedaan videogii aan dirsaday uu galayaa cabaar ayuu sugayaa. Haddaba sida aad halkan ugu wada jeedaan daawada qaybta hoose sida aad ugu wada jeedaan application-kan markii aad wax ku kaydsanayso wuxuu ka isticmaali doonaa NB ama data ama lacag ayuu ka isticmaali doonaa. Walibana hadda sawir markii aad rabto inaad ku kaydsato wuxuu ka isticmaali doonaa 7 KB ayuu ka isticmaali doonaa, waana lacag aad u yar. Video gaaban ama video short ah markii aad dishanayso ama aad ku kaydsanayso wuxuu ka isticmaali doonaa wax yar adiga 9.1 MB camal ah. haddaba sidaad halkan u jeedaan application-kan ayaa wuxuu large space-kiisa ama uu dhan yahay uu xitaa ka wen yahay iPhone-nada ama telefoonada iPhone-nada. Waxaa kale uu ka wen yahay aan dhahay waxa flash-yada ayuu ka wen yahay, wuxuuna gaaray heer
terabyte micnaheedu waa GB-ga ayuu ka weyn yahay. So sidaa darteed daawade haddii aad muuqaalka ka heshay fadlan waxaan kaa codsanayaa si taxadar si ay ku jirto qiimo in aa subscribe ii saarto channelka gambaleelkana aa furato si ay kusoo gaaraan muuqaalada muhiimka ah ee halkan kusoo gudbiyo. Ciao daawade.